1.1 million views, 1.3 million views, 1.7 million views. Anu waxaan helay blueprintiga youtuberskan videoskooda ugu dhigeen viral si waliba consistent ah. Videogan maanta ma noqon doono basic tutorial sida hashtags, titles ama choosing a niche. laakiin videogan maanta waxaan kugula wadaagi doonaa sirta ay adeegsadeen youtuberskan waaweyn sida kuwan oo kale. So first of all waxaan ku hormari doonaa analyze-ka journalistkan si aan u ogaano sidoo kale lacagta laga sameeyay. Okay, waxaan ku hormari doonaa ogaansho since uu bilaabay channelkan waxaan ka helay hal video oo popular ah. ogaansho videogan waa uu helay 1.3 million views. So markaan fiirino basic vidIQ ad revenue-ga uu ka sameyn karo ama ka heli karo waxa waaye 3.9k dollars waaye. Okay, videoskiida inta ugu badan waxa waaye 18 minutes waaye. sidoo kale upload frequency-giis waxa waaye isbuuci maalin kasta hal video buu soo dhigaa oo 7 uploaded per week waaye. Okay, waxaa ku jin doonaa Abdijalil Osman ama Abdijalil show sida u taqaano. So Abdijalil popular videoskiisa marka aan galay videogan isaga iyo Dr. Abdibasit wareysiga 1.7 million views baa daawatay. So Abdijalil markaan fiiriyo basic vidIQ toddobaadkii la soo dhaafay 300,000 subscribers views aa daawatay. sidoo kale bishiin ama monthly earnings waxa waaye 2k dollars waaye. laakiin videoskiisa long waaye inta badan hal saac waaye. So upload frequencies waxa waaye hal video inta badan soo dhigaa isbuuci, hal haba kusoo tuura isbuuci. hal mid ogow lacagtan ku tusinaa vidIQ ama analyze-kan viewskan iyo waxyaabahan waxay u badan tahay 100% real because of analyze marka la dhaho vidIQ 100% waa ka dambeeya aniga. sidoo kale waxaa ku jiri doona video kale uu soo dhigay Abdijalil show. videogan waa waxa wareysi Abdijalil iyo Sawda Galib marka analyze-kiisa fiiriyay 1.2 million views. halkan 1.1 million views buu ku tusaa laakiin marka analyze-kiisa la fiiriyo 1.2 million views waaye. saacad kastana videogan hadwa saacad kasta waxaa daawato 150 views saacad kasta every hour. Okay, hal mid ogow marka algorithm-ka kuguma bush garayn doono inaad consistent tahay ama aad nasiib leedahay. algorithm-ka mar walba waxa uu qiimeeyaa content-iska loogu jecel yahay ama loogu daawashada badan yahay platform-ka. So waxa ugu muhiimsan ee maanta kuu sheegayo waxa waaye inaad ka fikirto wax ay rabaan audiences-kaaga. waxay dhahaan thinking of your intended audience. inaad ka fikirto waxyaabaha ay jecel yihiin daawadayaasheeda ama audiences-kaaga. maxay rabaan inay arkaan audiences-kayga? videos noocee si fiican uga shaqeeyo gudaha niche-kayga. pointiga higa ee midkaan noo sii gudbinayo waxa waaye everything waxay noqon doonaan boring haddii aad iska tirto editing-ka waa wax ugu muhiimsan ee videogaaga gudahiisa. marka laga yimaado value-ga videoga ama interestiga videogan ay audiences-ka u hayn karaan. marka la dhaho editing ma aha inaad video jarjari karto, clips kala goyn karto ama timeline-ka videoga keeni karto. editing-ka waa inaad videogaaga ku dhex qaban karto dadka ama ku abuuri karto feeling adigoo u soo raacayo editing-kaaga. sidoo kale inay isfitgareeyaan music-ga, qeybaha value-ga leh videoga, qeybaha funniska ah, dhammaan inaad siiso background music u gaar ah si ay u soo jiitaan attention-ka dadka. pointiga higo waxa waaye posting time. marka laga yimaado everything else waxa ugu muhiimsan waxa waaye time-ka aad videoga soo dhigayso. for the past days-kii aan YouTube ku jiray everything okay bay ahaayeen laakiin hal shay oo aan ogaaday oo saameyn weyn ku yeeshay videoskayga ama inay meel fiican gaaraan iyo inay dhintaan waxa waaye time-ka aniga videoga soo dhigayo. okay, sidee ku ogaan kartaa markaad tagto YouTube analyze-kaaga kadibna aad ku dhufato audiences hoos soo degto when your viewers are on YouTube meeshaasaa ku ogaan kartaa xilliyada ugu fiican ee viewerska online yihiin. waxaan sidoo kale experience u yeeshay ama aan helay uploading frequency ama qaabka ugu fiican video usoo dhigi karo. for example haddii aad short soo dhigayso maalinkii inaad hal haba soo dhigto way kugu filan tahay. laakiin haddii aad long video soo dhigayso aniga kugulama talin lahayn in aad maalin kasta video soo dhigto. long video haddii aad diyaarinayso 3 maalin hal video soo dhig. aniga taasaa kugula talin lahaa. so videogan halkaana kusoo gabagabeynaya. waxaan horey usoo dhigay videogan oo ah sida la isaga ilaaliyo strike because of dhalinyaradeyna inta badan waxay soo gudbiyaan videos ku hiraan xuquuqda copyright. so videogana
kaga hadlay waa soo daawan kartaa tan kale haddaan nagu cusub tahay soo subscribe garee because of waxaa meeshan kusoo gudbiyaa waxyaabo ku saabsan YouTube growth adigana faa'iido ku leh waxyaabo badan channelka ka bedeli doono insha Allah subscribe ta ka ilowin channelka peace